وأنا سلام دمان صاحبada ku xiran channelkeena aad ayaan kaga mahadcelinaa sida wanaagsan aad ula socotaan muuqaaladan bartaan soo dhigo soo dhawaada saaxiibayaal maanta waxaan isla eegi doonaa sheekooyinkii ugu dambeeyay arrimaha aflaamta balse inta ugu gudageli muuqaalkii waxaan ka codsanaynaa channelka kusoo birto muuqaalka dadka shalaagi noo saar si share garay oo la wadaaga asxaabtaada soo dhawaada saaxiibayaal sheekada ugu horeysan ku bilaawi doono muuqaalkeena waxa weeyaan maanta waxaa tiyaatarada la saaray aflaam uu ka mid yahay Thama iyo sidoo kale filimka lagu magacaabo Ikdiwani ka Diiwaaniyaad marka la eego labadan filim maanta oo ah 21 Oktoobar ayaa tiyaatarada Hindi la saaray haddaan eegno filimka Thama Ayushmann Khurrana sidoo kale Rashmika Mandanna ay hogaamiye ka waxa xusuud mudan filimkan in muuqaal marti ama yaani ay ka soo muuqan doonaan jilayaal uu kamid yahay Akshay Kumar iyo sidoo kale gabadha lagu magacaabo Shraddha Kapoor Varun Dhawan ayaa sidoo kale filimkan ka soo muuqan doona sidoo kale waxa xusuud mudan in gabadha lagu magacaabo Noora Fateh oo ah gabadh dansiga inta ugu badan aflaamta heesaha kaga soo muuqato waxa shaac laga qaaday filimkan iyadana ay ka soo muuqan doonto shirkadda Maddox Films filimkan waa filimkii shanaad oo horror yaani comedy plus horror ah ay sameeyso marka la eego dhinaca kale waxa asna tiyaatarada la saaray filimka lagu magacaabo Ikdiwani ka Diiwaaniyaad waxa hogaamiyalkooda ah gabadha lagu magacaabo Sonam Baweja iyo sidoo kale jilaaga caanka ah ee Harsha Faran waa jilaagii Sonam Tiri Kasam hogaamiyaha ka ah marka la eego filimkan asiguna waa filim jecel ah waan arki doonaa labadan filim natiijahan sidee noqdaan sheekooyin kale aan soo qaadan karno waxa qayb ka ah wiilka lagu magacaabo Ibrahim Ali Khan oo ah jilaada yar waxa dhalay Saif Ali Khan waa wiilkiisa waxa uu leeyahay waa aan ka shalay sameeyay filimka Naadiyan maadaama uu noqdo filim guul dareystay marka hore dadku waxay rajeynayeen inuu yiri in filimka uu noqdo filim guuleystay aad ayaan ay hadal hayeen laakiin markuu guul dareystay waxaan kala kulmay cambaareen iyo sidoo kale hadal aad u xun saas darteed waxaan sameyn doonaa soo laabasho wanaagsan marka la eego jilaagan hadda waxa dabka u saaray filim lagu magacaabo Dilirkaas oo sports ah waxaana qayb ka ah gabadh lagu magacaabo Sara Leela filimkaas waxa yaani director ama agaasimo ka ah ninka lagu magacaabo Conal Dishmukh dhinaca kale xalay waxa geeriyooday mid kamid ah jilayaasha ugu caansan fankiintii khaasatan Bollywoodka lagu magacaabo Asrani waa mid kamid ah jilayaasha fankiintii soo maray khaasatan Bollywoodka toddobaadkii ayuu fanka ku soo biiray marka la eegana waa dhinaca comedy ay u badnaa jilaagan Asrani aflaam caan ay ku soo muuqday aflaamta uu ka soo muuqday waxa ugu weyn filimka caanka ah insha Allah aflaam badan ay ku soo muuqday uu kamid yahay filimka Maardi oo mid hogaamiye ka haysto sidoo kale aflaam kale aan tiri karin ugu dambeyn hadii aan ina dhankaasi Koonfuriindiana waxa laga qaaday jilaaga lagu magacaabo Ramjaran filimkiisa Beedi in la daawan doono 26 March sanada 2026 markay ku beegan tahay fasaxa waxay u dabaaldeganay Sari Rama Navaidi oo ah mid kamid ah quraafadiyada ay caabudaan isbuucaas ayaa tiyaatarada Hindiya la saari doona saaxiibayaal hadaba intaas aynu soo gabagabay muuqaalkayga fadlan muuqaalka dadka shalaagi noo saar si share gareeyo la wadaaga asxaabtaada aan ku mahadsantahay daawashada muuqaalkeena